Assalaamu calaykum. Waa mar kale iyo muuqaal cusub. Fadlan ku soo dhawow kanaalka Wadani Show. Maanta waxaan ka hadli doonaa 5 diyaaradood ee ugu horeysa qaaradda Afrika. Lambarka koowaad waxaa kaga jirta Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines waxaa la aasaasay 21kii bishii 12aad 1945. Sidaas waxa ay ku jirtaa 74 sano. Habka diyaaraddaas ama saldhigga diyaaraddaas waa Bole International Airport. Frequency-ga isticmaasho waa Sheba Miles. Alliance-geedu waa Star Alliance. Noocyada diyaaraddaas waa 125 xabo passenger ah, 44 xabo oo cargo ah. Lahaanshaha diyaaraddaas waa dowladda Itoobiya. Shaqaalaha diyaaraddaas wuxuu ka kooban yahay 13,942 ruux. Lambarka labaad waa South Africa Airways. Waxaa la aasaasay 1 bishii 2aad 1934. Waxa ay jirtaa 86 sano. Habka diyaaraddaas waa OR Tambo International Airport. Frequency-gu waa Voyager. Alliance-gu waa Star Alliance. Noocyada diyaaraddaas waxaa weeye 42 xabo oo passenger ah, 8 xabo oo cargo ah. Lahaanshaha diyaaraddaas waa dowladda South Africa. Shaqaalaha diyaaraddaas wuxuu ka kooban yahay 10,000 oo ruux. Lambarka saddexaad waxaa ku jirta diyaaradda Air Mauritius. Air Mauritius waxaa la aasaasay 14kii bishii 6aad 1972. Habka diyaaraddaas waa Voyager Ramgoolam International Airport. Frequency-ga isticmaasho waa Kestrel Flyer. Alliance-ga ku jirto waa Vanilla Alliance. Noocyada diyaaraddaas ay ka kooban tahay waa 22 xabo oo passenger ah. Lahaanshaha diyaaraddaas waa shirkadda lagu magacaabo Air Mauritius Holding Limited. Lambarka afraad waa Air Seychelles. Air Seychelles waxaa la aasaasay 1977. Habka diyaaraddaas waa Seychelles International Airport. Noocyada ay ka kooban tahay waa 6 passenger ah. Ma lahan wax cargo ah. Sidaas ayay ku noqotay lambarka afraad. Alliance-ga ay isticmaasho waa Vanilla Alliance. Lahaanshaha diyaaraddaas waa dowladda Seychelles. Iga raali ahaada waxaan ka booday frequency-ga iyo shaqaalaha. Frequency-ga diyaaraddaas ay isticmaasho waa Etihad Gast. Shaqaalaha diyaaraddaas waxa uu ka kooban yahay 650 ruux. Lambarka shanaad waxaa ku jirta Kenya Airways. Kenya Airways waxaa la aasaasay 22kii bishii 1aad 1977. Habka diyaaraddaas waa Jomo Kenyatta International Airport. Frequency-ga ay isticmaasho waa Flying Blue. Alliance-ga ay ku jirto waa Sky Team. Noocyada diyaaraddaas ay ka kooban tahay waa 53 diyaaradood oo passenger ah, 10 diyaaradood oo cargo ah. Shaqaalaha diyaaraddaas waxa uu ka kooban yahay 3,986 ruux. Sidaas waxaynu ku dhan 5 diyaaradood ee qaaradda Afrika ugu horeysa. Waxa aan qiyaasayaa ama ay ahaan lahaydba haddii ay noolaan lahayd Somali Airlines in ay ka horeyn lahayd 5taasba iyadoo ay number 1 ahaan lahayd. Amaba ay ku jiri lahayd 5 star-ka adduunka ugu horeeya, 5 diyaaradood adduunka ugu horeysa inay mid ka mid ahaan lahayd. Mase dhicin, Ilaahay ma qadarin. Laakiin waa wax dhici doona. Rajadeedana waa qabnaa. Ilaahay idinkiis waxa ay ku xiran tahay dowladdeena oo si fiican u soo noolaata. Aan ducaysano, Ilaahay barino in Ilaahay dowladdeena inoo toosiyo, dowlad xoog leh sidii aan way ahaan jirnay aan ku soo noqono. Ilaahay inoo kaso. Muuqaal dhammaystiran oo tafatiran ayaan ka soo diyaarin doonaa diyaaradda Somali Airlines. Waxay ahaan jirtay iyo haddeertaas qorshayaasha socda oo la rabo in lagu soo nooleeyo. Muuqaal dhammaystiran ayaan idinka soo diyaarin doonaa. Waa mahadsantihiin. Fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe tahay ilaawin, share iyo comment ku dar.